guddiga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya u qaabilsan maalgashiga shisheeye ayaa kulan uu ku yeeshay magaalada Muqdisho waxa uu uga hadlay dardargelinta arrimaha sahlaya maalgashiga. Gudoomiyaha guddiga maalgashiga shisheeye Cabdikariin Maxamed Axmed ayaana warbaahinta u aqriyay qodobadii ka soo baxay kulankaasi. guddiga wuxuu madax bannaan yahay oo mas'uul ka yahay maalgashiga shisheeye. guddigu si uu u shaqeeyo wuxuu dhammaystiri doonaa qabyatirka baahidiisa. guddigu waxa ay soo jeedinayaan in maalgashiga loo ogaado wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maadaama lagana soo saaro arrinta la afjaro arrinta khilaafka. guddigu wuxuu isla qaatay inuu yeesho xafiis u gaara oo uu ku shaqeeyo kaas oo ku dhex yaala wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. guddigu wuxuu isla qaatay in si degdeg ah loogu turjumo xeerka maalgashiga luqadda ingiriisiga carabiga si dadka ajnabiga ah loo siiyo. sida xeerku dhigayo waxaa guddiga isla qaatay in meeqaamka shirku noqdo sida xeerka ku qoran. guddigu wuxuu isla qaatay in la sameeyo xoghayn hoosaadyo iyo sharci yaqaano ka hoos shaqeeya guddiga. guddigu wuxuu hagi doonaa isla markaana farsamo ka geysan doonaa dhammaan shirarka maalgashiga ee Soomaaliya ee ka dhici doona dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba.